mas-uuliyiinta macallimiinta iyo ardayda jaamacadda Burco ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo mid ka mid ah ardayda jaamacaddaasi ku soo bandhigay buug laga qoray guud ahaanba cudurrada ku dhaca geela iyo waxyaabaha lagu daweeyo. buuggani oo qoray mid ka mid ah ardayda jaamacadda Burco isla markaana ka mid ah qoraayada magaalada Burco ayaa ka warbixiyay muhiimadda uu buuggiisani xambaarsan yahay iyo xubno ka mid ah macallimiinta iyo ardayda jaamacadda. وأبوك عوام سوينا نمضى نمضى الجيل ضاف كانوا بينه حي حنو مشوا وقرا عليه الجيل الجيل أنا بقول عليه حنمضى وقرا هو ملحق قرا هو عروش وقرا ضاف سيل بي وجدنا قوي يبوك أنا قوي ما عندنا مقعد دوري ما من أنا فكرة كورية ما دام عشان صار جامعة سويني ومعلمين يوسف عليه سلامة كان اللي يقول يا مطر هنا مسؤول اليوم وروح عن سد يمرك الكوبات أنا وين نشوفه gudoomiyaha naadiga akhriska ee qoraalka halkaraan iyo gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Burco iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa si weyn u amaanay qoraaga buuggan oo ku tilmaamay aqoonyahan ka soo dhex muuqday waxa kale ay u soo jeediyeen ardayda kale inay ku daydaan Cabdiraxmaan kala qayb galo buugga ku saabsan xanuunada geela ku dhaca oo Soomaalidu qoran oo Soomaali aad iyo aad ku soo dadaalay inaynu kala qayb galno farxadiisa saaxiibkii jaamacadda Burco oo soo bandhigay buug ku cusub qoraaga iyo dictor hadda inaan idhaahdo hambali maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaad xukmaan inaga inaga midi in uu afkoodii iyo afkeennii isbarbar eriyey oo halleerigiina afkeennii uu siiyey isla markaana koodiina u sheegay oo uu caddeeyey inaynu dad jira oo haddee xukmaan cilmi iyo aqoon iyo dhaqan leh aynu nahay dhallinyaradee ee wixii la geliyey durba soo tufay wuu gutay waajibkiisii oo markaasuu dee aqoontii u bartay halkaasay ka muuqatay miyaan ahayn researchna wuu sameeyey researchkii iyo baxadkii uu sameeyey baaritaankii wata halkaa ku taala miyaan ahayn waxay u baahan tahay inaynu ku dayano number one inaynu dhiiri gelinoo nidhaahno jaamacad iyo arday iyo cid kastoo institutionka ka tirsan aynu joognaa thank you very much waxaana gunaanadkii munaasabadani su'aalo lagu siinayay abaalmarinada buugaaga lagu weydiiyay ardayda iyo dhallinyaradii ka soo qayb gashay munaasabadani iyadoo kadibna shahaado sharafyo ay ku maamuuseen qoraaga naadiga halkaraan iyo ardayda jaamacadda Burco geesta kale 40 arday oo hablaha ka socday jaamacadda Hargeysa ayaa maamulka ardayda iyo macallimiinta jaamacaddaasi ku soo dhaweeyeen xarunta jaamacaddaasi iyagoo ku wareejiyay guud ahaanba qaybaha ay ka kooban tahay jaamacadda ugana mahadnaqay booqashadooda. Khadar Cabdirasaaq Saleebaan Hadwanaag News magaalada Burco.